Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qayb galay oo magaalada Muqdisho uga qayb galay munaasabad lagu soo dhaweynayay markabka baarista sameynaya ee shidaalka Soomaaliya. Munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay madaxda dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday dowladda Turkiga kuwaasi oo hogaaminayay wasiirka tamarta iyo shidaalka ee dalkaasi Turkiga. Markabkan ayaa shidaal baaris waxa uu ka bilaabayaa xeebaha Galmudug oo ah qaybaha sida rasmiga ah baarista shidaalka uga sameyn doono. Howlgalka markabkan ayaa waxa uu qaadan doonaa muddo 7 bilood ah waxaana si rasmi ah loo soo gabagabeyn doonaa bisha May 2025. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Aweys Jaamac oo isla munaasabadda ka qayb galayay ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay maanta taariikh fursad weyn ay u tahay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeedba si uu